الله لو حنا قال إلهي دي بركة هالقيس هذا فوق خلصن إيه بابرو هل فوق ما كجرني وكل لين ها هلكن على شاد أكتيس ويكون ذهب سامانية كرر كيبا على سوي يجي الضواك فوق عير أنت كلا إذا كان حتى نقول ما يصير معلم حسوستايو لما ودا سعوني بايدي aan xiran oo ra'iis Ethiopian buu igu kaalay dabadna waxaan ku wada aniga shilinkayga caawa daami waa laga casheynaya ka Ethiopian ka tagi maayee kaasaan tagaya kale ninkan furanaya ra'iiska liisan kana igu malaha waa nin Soomaalida uu isqarinaya wuxuu isku qarinaya muuntu meesha fadhiisay xitaa haduuna garaneen shaqadii buu yasayaa wuxuu la doonayaa inuu ma ogtahay haddana looga shaqeeyo qofku wuxuu doonayo waa inuu marka hore daacad u noqdaa haddii ay tahay ra'iiska haddii ay tahay bir ay tumayaan haddii ay tahay kabaha ay ma ogtahay sameynayaan haddii ay tahay shariikadan xashiishkii waxay gurayaan waan ugu soo dhaweynaa annaguna insha allahu tacaala bishaarooyinkii waxaanu geli doonaa iyo ma ogtahay bakhaarada ayaanu geli doonaa raashinkaanu soo dejin jirnaa مثلا maxaan ku raadayay baqaar inaan far baqaar maaha ilaa shaqada ugu sareysa wadanku inaad ku xisaabtantaa ma garanaysaa in cid ka xigta ma jirto waxyaabaha qaar kood marka dhibsataan xaq waxa uu leeyahay inaad ka mudaharaadaan oo laga mudaharaado dadku isku soo baxaan oo qabiilku yiraahdaan anagu tan maanan jeclaysanin maxamed xasan cali waji horta guud ahaan maxaa lagu haystaa horta beesha wax kale idin ku faantaydaan haysan wax kale ku faantaan ma haysataan dayax meydaan tagin washada meydaan samayn irbad meydaan soo saarin leyrka baxaya meydaan samayn waxa samaysteen oo kale ma jiro waxa haysataan oo qole reer hebel baan iyo wallahi reer hebel kaan noqda wata inta haysataan waa inta wax kala istaan oo ka adagtiin oo anaga haynaa ma jiro erayaan tiriyaan ku iri ilkiina cadaygooda ha ahaada caydayda agihiinu ay ka daalan ceeb doonisteyda abadayda iidiida oo iga daad siciirta calaalkayga iyo cabashadaydu ha ahaata ciidiina caalimkayga caalihiinu ha ku daadso cantabkiisa cod kastaa tihiin codka qulays ku waafaqdaa ha ahaada cadaadiskayga waxaa siinaya abwaan yuusuf shaacir arrinta si weyn baad u maqlisay in badanna waad ka hadashay oo arrimahani waad ka hadli jirtay maxaa kaaga baxay carab shaqooyinkii dalka intoodii badnayd ayaa ajaanibku la wareegay waa arrin culayskeeda leh oo sideedaba u taagan arrintan waa arrin dhaqaale adduunyadana waad aragtay marka dadka soo galootiga ahi dadka waddanka u degan ay shaqooyinka ka qaadaan koonfur afrika oo kale waxa ka dhacay waad aragtay waa arrin sahlan maaha in xagga dhaqaalaha la iska maro marka si loo eego waxay noqonaysaa nin ajaanib oo Itoobiya ka soo shaqo tagay oon qaxoonti ahayn ayuu ninkii muwaadinka ahaa ee ganacsada ahaa ee dhaqaalaha gacanta ku hayay nin shisheeye oo maalgeliyay uu maalkiisa gacanta u geliyay waxaan kaloon xogaal u ahay in maalka uu ku maalgeliyay inaan waxba isaga kaga soo noqon ninka Itoobiyaanka isticmaala jeebkiisa ku shubta habeen markuu soo maadro xilma soo galno kirada iska dib u bixiya laakiin mudnaan ma kala leeyin marka dastuurka u eegtid dadka wadanka u dhashay iyo dadka qaxoontiga qodobka isteedada kale faqrada saddexaad kale wuxuu tilmaamayaa qodobka isteedada si guud uga hadla sinaanta mujtamaca Soomaaliya oo aan ku koobnayno kaliya muwaadiniinta inkastoo markaa dadku ay muwaadiniintu u adeegsadaan sababtoo qodobkan wuxuu ka hadlayaa xitaa muwaadiniinta ka soo sinaantooda marka laga yimaado iyo in dhexdooda isku takooraan ama uu mamnuucaya takoorka muwaadiniinta dhexdeeda waxa kale uu ka hadlayaa xaqa sinaanshaha ee ay leeyihiin dadka qaxoontiga ah iyo dadka kale si sharci ku degan dalkeena markaasi hadba dawladda joogta ay ogolaatay gaar ahaan hay'adaha awoodda u leh abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee idahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus